ومجلي تجلي الله يا رسول الله يا ابن munaasabad lagu soo dhaweynaya dhalashada bisha Mawlid ayaa lagu qabtay masjidka Al-Cilmi ee degmada Caabudwaaq. munaasabadan ayaa si weyn u soo camareen boqolaal kamid ah macaashiqiinta xabiibkeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Caabudwaaq, saraakiil ciidan, culimada waaweyn ee degmada, odayaasha dhaqanka, aqoon-yahanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. ugu horreyn waxaa munaasabada furay caalimka weyn ee degmada Caabudwaaq, Sheekh Liibaan Xaaji Maxamuud, kaas oo bulshada ku dhiirigeliyay jacaylka nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee iyo ku dayashada akhlaaqdiisa suuban. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la dhalay bishan Rabiicul Awwal 12keeda sanadka waxaa lagu magacaabaa la dhalay Caamul Fiil. sanadkaasi wuxuu ku aadanaa 20 Abriil 571 taariikhda miilaadiga. nabiga waxaa nuujisay gabadha la yiraahdo as-Sayyida Xaliimatu Sacdiya. xaadinadiisa nabiga waxay ahayd ama mid xanaanaysay as-Sayyida Ayman. nabigu calayhi salaatu wasalaam 4 sano markuu jiray xilligaas waxaa la dilaaciyay laabtiisa shariifka ah. kadib waa markuu Xaliimo la joogay ee nuujinta loogu geeyay ayaa malaku Jibriil u yimid, laabtiisuu jeexay, cadkii caddheefeedka shaydaanka ah ayuu ka saaray, kadibna wuxuu ku dhaqay maa'u Zamzam, kadibna wuu tolay, xikmad iyo nicmo badanna uu ka buuxiyey. sidoo kale qaar kamid ah mas'uuliyiinta iyo culimada ka qayb galay munaasabada ayaa jeediyay hadallo ay ku muujinayaan dareenkooda iyo farxadda ku aadan xuska dhalashada bisha uu dhashay nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. dhalashadiisa culimadu ay nooga sheekayn doonaan siiradiisa insha Allahu tacaala, amdaaxdiisa la qaadi doono. waxaan rajeynayaa inaan anagoo faa'iido badan haysano inaan halkan ka tegi doono. يا زين العالم يا رسول الله أبدأ بسم الله سبحانه وتعالى نبينا oo ku karaamay tawfiiqdiisa akhlaaq wanaagsan ayaa ilaahay ku sharfa nabiga calayhi salaatu wasalaam. akhlaaqdaas wanaagsan ilaahay qofkii uu doono ayuu siiyaa, kadibna ilaahay uu ku amaanay nabiga akhlaaq wanaagsan inuu siiyay iyo sifaad qurux badan inuu siiyay ayuu ilaahay ku amaanay subhanahu wa ta'ala. quraan fara badan iyo aayaad fara badan ayaa amaanaya nabiga sallallahu alayhi wasallam. culimadu waxay yiraahdaan آياتك قرآنك دمان قرآنك بأجمعه وهو أمانة نبي صلى الله عليه وسلم. لكن قاركيس نوحو أمانة سي صراحة قار نوحو أمانة نبي سي ضمني أيو أمانة مركا كي كوموشيا وأتكفهمت يكاد كفهمين به وحاكو في النبي صلى الله عليه وسلم. قرآن كان إن أسجل لو سوديبي أنت سأمان في النبي عليه الصلاة والسلام. وحياتها علمها يوحي أقونها يعلمها النوتري أنه وحن سنة هدتك أضياشا وحن كفر أحسن هاي ما أنت إلي مالين وانتهاي مالين فرحدات هاي dhacdo weyn oo kala saartay xaqa iyo baatilka, sidoo kale mugdiga iyo iftiinka ayuu kala saaray sallallahu alayhi wa alihi wasallam. maalinka nabigu uu dhashay waa maalin ka duwan maalmaha, sidaa daraadeed markii la weydiiyay wuxuu yiri daaka yawmun wulidtu fihi, maalinkan waa maalinkii la dhalay ama waa maalinkii aan dhashay. macnaheedu waxa weeye waa maalin ka duwan maalmaha kale. waxaa la yiraahdaa shay kastoo nabiga loo tiiriyo calayhi salaatu wasalaam yataxawalu min xaalatin caadiyatin ilaa xaalatin gayri caadiya. wuxuu ka wareegaa shay caadi ah inuu iska yahay shay aan caadi ahayn ayuu u wareegaa. saa daraadeed baa waxaa la oranayaa kabtii nabiga sallallahu alayhi wasallam, timihii nabiga, seeftii nabiga, mar kastoo loo tiiriyo shayga
qofku inuu arko wuxuu ku bixinayaa wax badan. salaanta qalbiga way diiriyaane waswaaskana way dilaane hadaynina daakiraada daahow nabigeen iraahda rasuulka qofkii ku dayda sidiisa qofkii dadaala qofkii ficilkiisa doona dawgiisa qofkii u raaca qofkii dar alle jeclaada maciisuu doogayahay daahow nabigeen iraahda nabiga diintiiyo qur-aanka intuu xaqa daafacayay nabiga daqar loogu geystay nabiga dacwadiiyo fariinta intuu nala daydayayay nabiga didib adag ku seexday inay dunidaani nuurto darteed nebigii hijrooday dahabka nebigii ka doortay calooshuu dhagax ku duubo dar alla ruuxii jeclaada maciisuu doogayahay daahow nabigeen iraahda nebiga dahab iyo xariiro ka saahiday duunyo maala dukaamiya daaro fooqle nebiga diideen jeclaysan nebiga juhaalada dilaysa dagaalka intuu ka baajo hanuunka u soo dalbaayey dadkiisa inuu badbaadsho dibbood nebigii mutaystay dar alla ruuxii jeclaada maciisuu doogayahay daahow nabigeen iraahda nebiga samirkiiyo dulqaadka rabbigi deeqaha u siiyey nebiga darajada sarraysa dabeecada lagu ammaanay nebiga samadaa ku duulay duruus yaablana xambaaray rasuulka ilaahay baa raxiim ku sheegay ilaahay wuxuu ku yidhi qur-aankiisa kariimka wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin nebi muxamedow waxaan kuu soo diray inaad raxmad tahay ummadaada aad raxmad u tahay waa mid mar kale ilaahay qur-aankiisa kariimka wuxuu ku yidhi laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim buu yidhi ma garanaysaa mar kale ilaahay qur-aankiisa kariimka wuxuu ku yidhi fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum walow kunta fadan qaliida alqalbi min xawlika lanfaduu min xawlika facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr faidaa cazamta fatawakal cala allahi in allaha yuxibu lmutawakil mar kale saasuu ku yidhi marka qul bifadlillaahi wa biraxmatihi aayadahaasaa ku soo haray raxmad baa inuu nebigu ahaa ilaahay baa sheegay raxiim baa ilaahay ku sheegay haddee baalka la yidhaahdo aayadahaasaana u daliil ah محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم بالمولى محمد وصلي يا حبيب الدنيا لن درتك لا أقوله الدنيا لن درتك لا أقوله ومدي سنة إلهيك فضل اليوم أحمد نبي وأميرك يا أنبياء عليك وسلم المولى محمد اللهم صل وسلم بشارة يوم بمركي مولى دورته بدر نبي كفارتي وذا بذوقه فريس نبيك كبر قبله عليك وسلم المولى محمد اللهم صل وسلم جبل أورا حرم كيلو شهيا شاير كيسو المدي جوشي وايه جدكي لونا مري نبيكان جليلاي عليك وسلم المولى محمد صل يا ربي على خير الخلق أحمد حبه فواجب محتم مؤبدا حبه فواجب محتم مؤبدا حبه فواجب محتم مؤبدا حبه فواجب محتم مؤبدا حبه فواجب محتم مؤبدا
munaasabadan ayaa ku soo idlaatay jawi farxadeed iyo duco guud oo lagu duceeyay ummadda muslimiinta gaar ahaan nabad iyo midnimo iyo barwaaqo